بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رمضان كريم. شعبك الصوماليات ملكستي جوغان gaar ahaan beeraleyda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ramadan mubaarak. Ilaahay Ramadan kan khayrkeeda hayna waafajiyo. Ilaahay ducooyinka dadka muslimiinta ee Soomaan akhriyayaan haynoo aqbalo. intaas kadib maanta shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay inaan ummadda Soomaaliyeed la hadlo oo kala hadlo qaabkii ay cuntadooda u heli lahaayeen walaalayaal sida aad ogtihiin dalka Soomaaliya wuxuu ku jiray xaalado amni darro ama meelo dalka kamida amnigiisa aanu fiicnayn dadka Soomaaliyeed waxay ku jireen xaalad amni darro deganaan la'aan isdil qabiil muddo ka badan 32 sano 32 ka sano dadka Soomaaliyeed waxay ku jireen dhibaato dhinaca cuntada ah in badan baad maqli jirteen mar walba Soomaaliya loo soo gurmado Soomaaliya waxa ka jirta xaalad cunto yari Soomaaliya waxa ka jirta macaluul innaka oo Ilaahay khayraad aad u badan oo dhinaca beeraha iyo xoolaha iyo kalluunka ina ku banaystay ayaynu mar walba waxaan ku jirnaa tuugs ilaa inoo tuugsado dadkeena masaakiinta ah xoolo dhaqatada ah beeraleyda ah kalluumaysatada ah iyo dadka magaalooyinka jooga doonaya inay cunto cunaan waad ogtihiin waxyaalaha yar ee dhaqaalaha aynu haysano ama dadkeena diaspora ee banaanka ku maqan inoo soo xawilaan ama dalka gudihiisa laga soo saaro waxa lagu qarash gareeyaa oo aan ku soo gadanaa raashin lagu beeray meel kale aan ku gadanaa oo lacagteena adag ku gadanaa sidaas ay tahayna adduunku dhowr iyo 30 sano wuxuu la garab taagnaa caawimo ayuu la garab taagnaa shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa adduunku wuu isbedelayaa hadda waxa lagu dhawaaqay inay dhici karto in roob yari ay mar labaad ka dhacdo kuga soo socda dalka Soomaaliya oo cuntadu ay yaraato ama dad ka badan 4 milyan oo Soomaali ah ay cunto yari soo wajahdo dalka gudihiisa ku nool arin aad iyo aad khatar waa weey walaalayaal waxaan idin sheegayaa tuugsiga iyo cunto raadinta waxay ku noolaadaan raadinta ummadda Soomaaliyeed waa adduunku waa ka taagan yahay waa ka noogay xaaladda adduunkuna way isbedelaysaa maanta halkan waxaan soo istaagay inaan dadka Soomaaliyeed yiraahdo waxa loo baahan yahay inaa isku tashataan waxa loo baahan yahay inaa cunto sidaad u heli lahaydeen raadsataan qof waliba inaanu isku halayn gargaar dibadda uga imaanayo oo aan la hubin ee uu ka dhawaado meel uu cuntadiisa ka soo saaran karo dadka Soomaaliyeed oo dhamay haday badda aadaan way ku noolaan karaan dadka Soomaaliyeed oo dhamay haday beeraha fashaan way ku noolaan karaan dadka Soomaaliyeed oo dhamay haday xoolaha si fiican u dhaqdaan way ku noolaan karaan laakiin tuugsigii cunto uu soo dhamaanaya ma shaqaynayo annaku wasaarad beerahan waxaanu bariyahan ka shaqaynaynay runtii si fiican aanu hawl fiican ka wadnaa si dadku cuntadooda u soo saaran lahaayeen siday magaalooyinka agagaarkooda urban farming waxa la dhaho u soo saaran lahaayeen dalka Soomaaliya wuxuu leeyahay biyo roob daa uu leeyahay laakiin lama qabto biyihiisa lama qabto wuu leeyahay webiyaal mara oo wax lagu beeran karo sidoo kale wuxuu leeyahay biyo badan oo dhulka hoostiisa ku jira oo la soo bixi karo oo beero lagu falan karo oo cunto lagu soo saaran karo ayuu leeyahay qorshayaasha waxa noogu jira inaanu samayno isku filnaan cunto meel dalka kamida tuulo oo kale inaanu u samayno beero aan ku xidhnayn roob inuu dao ama webi inay biyo soo maraan laakiin biyaha dhulka hoostiisa hadii kuwaasi ka go'aan intuu la soo baxo qofku uu beer ku samaysan karo xoolihiisa cunto ku sii karo caws ugu soo saari karo dhawaan waxaanu tagi doonaa meel dalka kamida oo xilligan hadda abaarta aad arkaysaan ee kulaylka ah beer la goosanayo oo wasaaradda beeruhu ka shaqaysay dalag la goosanayo taas baanu doonaynaa ina miidiyahan nala baahisaan annakuna aan ka shaqaynaynaa inaan cuntadeenu aanay ku xidhnaan roobka oo Ilaahay uu keenayaa laakiin dalka Soomaaliya waad aragteen webiyaal iyo togag soconaya oo dad qaadaya bil kadibna qofkii wuxuu ku leeyahay biyo ma haysto taas aqli bini aadanka way ka weyn aqliga bini aadanku inta ka badan inuu maamulaa loo baahan yahay
markaa wasaaradda beeruhu waxay wadaa sidii qof waliba cunto u soo saaran lahaa gurigaaga jardiinkiisa garden farming urban farming magaalooyinka agagaarkooda iyo beeraha waaweyn ee banaanka waxaanu qaban doonaa shirka maalgashiga beeraha ee dalka aanu qaban doonaa dhawaan waanu ku qancinayno bangiyada iyo ganacsatada Soomaaliyeed inay maalgashadaan beeraha haddaynaan taa yeelin adduunku waa ogtiin marxalado ka duwan buu soo maray hatta intaynu noolayn dagaalkii koowaad ee adduunka dadku cuntadooda way waayeen dadkii caawimada ku xidhnaa way waayeen waxay qasab ku noqotay in qof waliba baadiye aado meel wax ka cuno raadsado way imaan kartaa taa mid lamid ah marka halkan maanta waxaan soo istaagay inaan idhaahdo dadka Soomaaliya waxa jirta xaalad cunto yari iyo gargaarkii aan ku tiirsanaan jirnay oo ay dhici karto inaan sidii loo heli jiray loo helin waxa khasaba markaa inaynu u diyaar garowno inaan cuntadeena inaku raadsano inaan inaku iscaawino waad ogtiin beeraleydii Soomaaliyeed waxa soo burburiyay meelo badan argagixisada oo dhalinyaradii ka qaadatay xoogga ahaa oo beeraleydii dhibtay oo wixii ay soo saaraan ba ka qaadatay laba target baynu leenahay inaynu dalka argagixisada ka ciribtirno oo nolosheena dhan hortaagan iyo waxaan leenahay in aynu wax soo saarka beeraheena kordhino aad ba u mahadsantahay